الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد runtii aad baan ugu faraxsanahay ma sha Allah tabaaraka Allah dowradan الدورة التأصيلية في مسجد الرشيد وكمل runtii dowraadka midaaliga ah oo cilmiga qaababka hadda wax loo bartaa tii markii hore cilmigu wuxuu jiray cilmu xalaqaat iyo masaajidda in wax weeye cilmiga lagu barto oo ay noqoto goob cilmiyeed بعد هذا بدأت من دراسة الله يقانو الأكاديميات iyo xalaqaadkan xaggan jaamacaadka iyo macaahidda laakiin cilmiga asaaskiisa masaajidka in wax weeye lagu barto runtii masaajidka in cilmi lagu bartaa waa sharaf waana fadli aad iyo aad u weyn oo Ilaahay subxaanahu wa ta'aala dadka qaar uu siiyo laakiin wuxuu leeyahay aadaab iyo dhaqan u gaara oo masaajidkii ixtiraamkiisii waliga xalay sheeganay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala in nabigiisa uu ku yiri nabiyullaahi Muusa alayhi salaatu wassalaam fakhla'na alayka إنك بالوادي المقدس طوى إنك بالوادي المقدس طوى marka runtii walaalyaal masaajidku wuxuu u baahan yahay aadaabtiisii dhaqankiisii wuxuu u baahan yahay qofku in weyse qab uu ku soo galo labadii ragcadood qofku inuu tukado aadaabtii dhaqankii cilmigii in dhamaanteedba macaashara tullaab ilm in wax weeyaan aynu ku sifeysanahay waxyaalaha xal aan sheegay iyo waxyaalaha kamidaba kelmadan waxay ku saabsanaan doontaa nooc labaad oo cilmiga loo barto tan hadda aad qaadataan waa duruustii cilmiga ahayd waa shay aad iyo aad u muhiima waa talaqigii xalay aan tilmaamiyey waa shay daruuri u ah ardayga taalibulcilmi aw taalibatulcilmi in cilmiga qofkii uu ku bilaabo oo culamadii uu ka qaato afkoodii cilmiga uu ka qaato ase yeeshee culamadu cilmigii oo dhan kuma wada siin karaan wadiga hadda waxa weeye sheekhu oo mashaayikhda duruusta akhriyaya sheekh walba waxa dhici karta inuu ku raado mas'alada hadda doonayso tafsiilkeeda ama iyadoo si faahfaahsan waxaad u noqotaa kitaab hebel ama waxa ka hadlay sheekh hebel hada mesela doctorku xafidahullah wuxuu akhriyay taariikhdii al-Hafiz ibn Hajar iyo tarjumadiisi al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani rahmatullahi alayhi rahmatan wasi'a waxa jira caalim culimada muslimiinta kamida oo ardaygii ibn Hajar ah oo kitaab dhan ka qoray siirada iyo taariikhda al-Hafiz ibn Hajar al-Asqalani طالب العلم قال له باهي انه يصير راو كتاب كاي شيء ميزه كتاب كلغا قري تاريخ ذا ابن حجر مغيسي شيغيا استاكش يسوم حي يعني اسكاله ملا طابع كتاب يا تحقيقي اما ودرتي جزاك الله خير انت كبدان وشاه لكن يمد يعني waxay tahay in kitaabka magaciisa cid qortay kitaabkaasoo kale hadda akhuuna hadda uu sheegay magacaaga Abdurrahman Zubayr jazakallahu khair kitaabka hadda uu sheegay akhuuna Abdurrahman oo kitaabkii doctorku inoo sheegay Soomaa ee uu yiri wax weeyaan siirada xaafidka wax weeyaan iyo taariikhdiisii oo dhan baa laga hadlay oo kitaab runtii ajab qaba yani runtii mar baan ku dadaalay bal kutubta ahlul cilmiga laga qoray taraajimta loo yaqaan at-taraajim al-mufrada tarjumooyinka u gaara culimada ibn Taymiyyah oo kale kitaab laga qoray ibn Hajar عراقي سخاوي فلينا نسكو دايو وحي كتب تالا قري تراجمته مفرد كائنا اخريو كتاب رمتي كعجب بدن ما ارى كتاب الجواهر والدرر في ترجمه ابن حجر صدح مجلد ويان كصدحات واسك فارس لبدا مجلده هore ayun ba asaas ah waa kitaab ay muhiim tahay marka maanta magaciisa aad qorato inaad halka ka baxdo oo kitaabkii ana dib u xasuusan ma waa inaad kitaabkii wax weeyaan dib uga faa'iideysataa waa inaad isku dada kitaabkii inaad dalbato kitaabkii inaad hadii xataa aad weydo kitaabkii oo waraqiya isagoo raqmiya inaad soo dejisato oo PDF oo internetka ku jira oo marka halka aad ka faa'iideysato waa hadda aan ka hadli doona ee ku saabsan ahamiyatul qira'a li talib ilm diraasada aynu baranayno iyo duruusta aynu qaadanayno hadii aanay la barbar socon qiraa'adii iyo mutaalacadii kutubtii culimada hadii aanay la barbar socon faa'iidadu way yaraanaysaa ardaygu waa inuu yeeshaa 3 baal waa daruuri duruusta cilmiga ah waa baalka koobaad ee qofku ku bilaabayo cilmiga baalka labaad uu ku duulaya طالب العلم جناح labaad waa janaxa ku saabsan القراءة والمطالعة inuu wax akhristo waxna uu taalacsto waxa ku sii xiga baalka saddexaad oo ah البحث العلمي inuu wax baaro oo wax baxthiyo oo taasina waxay imanaysaa marka aqoontaada ay fiicnaato duruusta cilmiga culimada talaqiga aad kala kulanto mutaalacadii cilmiga aad sameeyso cilmiga aad taalacto aad raajacsato oo isku daydo kutubtii wixii inaad u soo muraajacayso waxa ku imanaya qadiyada ku saabsan inaad wixii aad u yeelato baxsi
oo aad wax baari karto oo mas'ala marka hada sheekhu soo tarxiyo ilaa sheekhu mas'alada la soo baaro inaad garan karto qaabka loo baariyay marka taabacti kulli muhaadaraat iyo dowraad bay u baahan tahay tadriibiya laakiin hadda waxaan ka hadli doonaa ahmiyatul qiraa'ah runtii walaalayaal waad ogsoontihiin qiraa'adu inay tahay shay aad iyo aad muhiim ah aayaad baa ku soo aroray ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu kaga hadlayo qiraa'ada iyo ahmiyadda ay leedahay maxaa kamid ah aayaadka waxa kamid ah xasuusiya suurad dhan baa ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ku bilaabayba iqra waliba laba goor bay soo noqotay iqra bismi rabbika alladhi khalaq khalaqa al-insana min 'alaq iqra وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بالقراءة أخرنت قفك وحكو فائدي كرا عقلي سئلو عقليك عليه قفك يوجيه وحق قراءة ولا يلا إلى هذا قفك نلش أنتو نولاني وإن ركوما حلقة بالإحدى سنة تضباطا سديتا بقول قفك نجار مركا قفك بقولك جارية دي عقلي سي مسكحدي سي وكو جارية لكن مركز ما أنت أخرسته عقلية ما أنت علماء ووينا إهره علماء سلفك الطبري الحاكم ابن عبد البر القاضي عياض النووي الرافعي ابن حجر مركز ما أنت أخرده عقلية دي قابك يفكري تشيرين عقل جاي واحد قدر يسا عقل كله تجربوين كاجي إلهي سبحانه وتعالى وقسي واحد قدر يسا تجارب كله علمية فربضان عقلية فربضان باقفك وكرر سنة قراءة وحلا يلعب رنت ولا لا يلوح إنها أمة اقرأ يعني أمضى إلهي سبحانه وتعالى كلمة وهري إلهي سبحانه وتعالى نبينا قصد الشيء آية واحد عليه الصلاة والسلام آية واحد اقرأ وأخر مركا النبي عليه الصلاة والسلام أمي بوها ما كان يقرأ وما كان يكتب إعجاز بأن كنت شريء النبي نمديس أي تعزيز عدنا هو من أعظم دلائل النبوة دليل ذا هو وين النبي نمديس اللي قرأنا عليه الصلاة والسلام وحي تاهي إن وحاس علمي النبي وكتغي وهو لا يقرأ ولا يكتب وحا علم أنه كلا وضناه ووحي يرء كم علم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مركها طبعا قفت ما تقول أنا أمي بان نغني سيدي النبي أمي وها تاسمي يكون جرت أسوأ يكون ضيشه وما علمناه الشعر وما ينبغي له وما هبون النبي عليه الصلاة والسلام لا شعر بقى وهبون ولا نبي أنه قراءة برطو يقابك النبي وآخري إحجاز معجزة سيدا ساوح بين النبي نودي سيدا سكت سنيسا لكن إنكم حين صاران إنه دي وحبرنه تعلمك برشدي مركا أمة اقرأ أمة تقرأ لا بد أن تقرأ مد قراءة وإنها maxay samaysaa qiraa'o runtii walaalayaal saaka waxaan la kulmay nin ardayda kamida aragga tulaab ilmiga yani sheekha oo mustafiida ninkaasi waa qaari maadaama muxaadarada ku saabsan qiraa'ah waa in qasab qofku isku dayo inuu la kulmo bal dadkii wax weeye ay dhici karto inuu ninkaasi kutubtu akhriyo wax kamid hadaan idinka sheego فتح الباري لابن حجر العسقلاني 17 مجلد بكوكوبيه طبعتي سيوره المكتبه السلفيه كاملا واخري شرح النووي على صحيح مسلم اجزادي سيرير 16 جزء بكوكوبيهين لبا غور ايو اخري كتابك لو يقان المحلى لابن حزم وككوبان تقريبا طبعاتي سقار كتبان مجلد مربو اخري كتبت ابن القيم ودميسترا من اولها الى اخرها وهذا دار عالم الفوائد اي طابع عليه كوبيه 6 مجلد كاملا واخري انتو كتر ليه وان هرجيسه جوجو شقيستو بيع مشترو يعني ما هن متفرغه بقول كيو بقول wax kale aan qaban ma waan shaqaysto xawiyaan dadkiisa ku xijira laakiin qaari yaqra waadix oo akhriyo wa fadli ilaahi subhanahu wa ta'ala u bixiyo taasna waxyaalaha ka qayb qaadanaya waxa kamid ah waa in qofka horta uu garanaya ahamiyadda waxaan ay leedahay waxaan ka hadli doonaa dhowr qodob ilaa 6 qodob oo aad u kooban bi idin azza wajal oo qiraa'ada maxaa la iga baahan yahay marka maanta doonay inaan qaari noqdo wax akhriya maxaa la iga baahan yahay كو تقدم كولا يعني وهرية waxay tahay waxa aad akhriyayso limaada taqra su'aasha ugu horeeyay suudinaysa waxay tahay limaada aqra maxaan wax u akhriyaa waa in ay jirto hadaf qiraa'ada aad akhriyaysa waa in ay leedahay hadaf iyo yool waa inuu jiraa aad wax weeyaan sababtiisa aad wax u akhriyayso limaada aqra maxaan wax u akhriyaa marka مثلا hada tusaale ahaan waxyaala qofku wax u akhriyo maxaa kamid ah talab ilm waxa kamid ah istizaadatu al-ma'rifa qofku aqoontiisa inuu kobciyo waxa kamida baxsiga daaim tilmaamayna mas'ala lagu diro lagu wari jawaahir ad-durar tusaale ahaan مثلا yani waxba ku qabsaday ama tusaale ahaan مثلا zarkashi ibn hajar waxyaalaha zarkashi uu ku qabsaday ka soo gur jawaahir ad-durar waad akhriyaysaa li ajli hadaf al-bahth waxdoonaysa inaad macluumaad ka baadho macluumaadii aad gaadho marka horta limaada aqra marka ugu horeyso horta maxaan wax u akhriyayaa waa in horta su'aasha qofku marka ugu horeyso horta jawaab uu helaa
طبعا سؤالها قفكو يسودي كرم حيث سؤال شلوات ماذا أقرأ محان أخريها ما شاء الله هذا waxaan gartay ahmiyada akhristo waxa way akhrisku leeyahay inaan wax akhristo kutubti aan akhriyo tay maxaan akhriyaa maanta doonay inaan bilaabo akhris bismillah maxaan ka bilaabaa gurigaaga ku noqo maktabada yar ee ku taala ee mutawaadica ee guriga ku taala baad maktabadaas imisa kitaabada inta soo iibisay halkaas oo aad dhigtay oo assalaamu calaykum halkaas subaxii waad sii salaantaa markaad guriga gashana kutubta waad salaantaa markaad ka soo baxaysana waad soo salaantaa dabadeedna isma taqaanaan waxa laga yaabaa dhowr bilood kutubta qaarkood inaad hayso waxaad tira koobtaa kutubta maktabada yar ee guriga ku taala 10 kitaab 6 kitaab 5 kitaab inta risaale aan wali aanad akhriin aanad kala furin horta inta waxaad ku samaysaa maxay koobitaan ku samee ماذا أقرأ محان أخريا اقرأ ما في مكتبتك المكتبة المتواضعة مكتبة غير متواضعة أنت ورت كوت على ورت بالكبلو اسكت ورت أنت عينت هبيستو أدواتي ورت كتب تاس نقاب كذو أخري لهاي وحلقة بقى مركز هذا مكتبة هذا اللي جوا الرمي وحلا أخري وقف كله تصور ور مكتبة وين ورت إلى أنت كتب بدل ما كتب بدل لبضي رسالات ما داخلين مكتبتك ويالي لبضي الرأي ورت جوري كوي يالي بعد ولي أنا تفرن بقى مكتبة وين ومركز وحوي على ونني وهالك وحكوا في عند دلالك عرفت دنيو كتب با اسكا تالا كتبت هذا الاخرين ما اسكا تالا maxay taraysan hadii kutubtii aan akhriyeen waxba tari mayso illa iska soo ururiyo marka halka hadda meelaha hadda aan ka nimay dadka qaar kood kutubta waxyaalaha loo iibsado waxa kamid ah waxyaalaha qaar kood la yaabaysan hadda ay sheego asbaabaha kutubta loo iibsado ragga qaar waxay iibsadaan in guriga ku qurxiyaan nin taajiro guriga u dhisanaya dadna qol dhan baa lagu tala galay afarta qabcadood inaan daahiyo lagu xirin inagu soo daahiyo lama iibsado guriga oo laguma wax weeyaan isagu daahiyadiisu maxay waa kutub nin buu dhibaya shaqaalo ku oranaya kaalada afarta qabcadood maxaa buuxinaya waxa laga yaabaa $10,000 oo sheekin ka qaado maktabada qabo soo gurnado aba garanayaba uu iska soo gurayo wixii kutubaya qurux badan sharaxaad ku soo baxayso guriga garanaysa oo sharaxaadiisa ku soo baxayso dhammaan soo urursanaya marka tabada halka gaaridi الخطيب البغدادي رحمة الله عليه رسالتي صلى الله يقانو اقتضاء العلم العمل رسائش مهم جابي كجدا هذا أنا الكورة يا أخريا مقعد الله قرته اقتضاء العلم العمل يعني علمي يوحو كان سنة وحياله وكان سنة يعني كم تهيك عمل فن وحياله وكذا هذا لو حكم إذا الحافظ الخطيب البغدادي رحمة الله عليه وحولي وهل كانز الكتب إلا ككانز الذهب والفضة قفك كتب تصور الرصدة كانز الكتب منك كتب تصور الرصدة يقول يسي ولا كتب كردية لكن أنا أخرين وحنا كفائدي سنين قلبنا آن وحويا آن يقوينين وهل كانز الكتب إلا ككانز الذهب والفضة منك الذهب والفضة أنت تصور الرصدة ما لسك كردكتين وكلامه إيه ما يوحك لا يكردك يعني هو أسكمد ممكن إنه الذهب يفضة يحول إنه الرصدة يقولوا كتب الرصدة وأسكمد وحفرق قدحيا دي أنا أخرين إنه أنا كفائدي سنين marka taas runtii qodobka ku saabsan maxaan akhriyaa waxaad ku bilaabaysaa kutubta maktabada ku taala risaa'isha yar inaad akhrido waxa weeyaan qodob aad iyo muhiim ah qodobka saddexaad mata aqra goormaan wax akhriyaa saacadii waqtiga ma hayabe subax oo dhan soo dawladda aan ku jiro duurkii waan ka baxaa casarkii malcaamad baan macalinka ama ardayka aan dhigtaa bacd maghribkii tafsiir waqtiga ma jiro laysa ladayya waqti ma hayo waxyaalaha ugu badan كلمة مشغول مركتها ويدلمنت كلمة ضد ويا نين أنا وحبها هين بوراني مشغول مرة مشغول إخواني الكرام وأخواتي قراءة وحلا إلى هذا وحي أباهم تعي هذه الروح ذا أي أمسنتهي وقتي أنا أوصل ويميس يعني وحيالا مثلا هذا اللقي يا بنو لشين هذين وديب هذا يسوون نغنى وقتي وقبضا إنك قاعدة أو سايش التواصل كم براب الشيء أما وحيالا السلاح الشيخ محمد بن هادي وبحين شري يعني مردس فرطة وحلو مردس صباح فرطة سلقوا مردس ويجي بالك يرن محا موبلك ساس الله وضع موبلك ساس الله وضع وديك عكي وهدي وقت جاي وقت أنا ما أنت من حساب إنه وحدي كرتا لبس ساعة صدح ساعة يوميا كل يوم لبس ساعة ولا صدح ساعة مكاقطه واللي باللبضة ساعة ونيكا مسكين كي وقت بدنا عن السنين بقى لكن وحلا جاب صدح ساعة أفر ساعة شن ساعة ولي وح مفيد وح laga yaabo qofku dii wax ku jiri lahaa ama wax barnaamij iyo hadaf qofku ka leeyahay wuxuu eegayaa in waxa meesha marba la soo dhigayo la soo gelinayo ikhwaan الكرام waxyaalaha baraha bulshada loo yaqaan masaa'isha tawaasul Facebook Twitter Snapchat iyo magacyo kala far badan oo aan aqoonba waxyaalahaas runtii waxyaalaha ugu badan ee waqtigeena cunaya waxyaalaha waqtiga ku cunayaan waxa kamid ah berigii hore moobiladeeni abu tooshiliin garanaysan marka diyaarad tafashku ku yar dhaama diyaarad daasho adiga geem yar ba jiri jiray oo lagu ciyaaro garanaysan Soomaa maski yar ay wareegi jiray maskaasa maanta oo dhan la wareegaysaa maanta oo dhan dadna uu dhamaanaya
haddana mar labaad baa laga yaabaa inaad ku soo celiso wixii durduba soo ka dhamaadeen mar saddexaadna dad ku soo celiso wax laga mar afraad inaad ka xiisa dhacdo Soomaa wixii waa giimir soo wareegay wareego dadna u dhamaado Soomaa laakiin waxaan wax dhamaanay ma saqaf ma laha waxaan baraha bulshadu saqaf ma laha waa dhamaysay haddana dib isu soo bilaabay waa dhamaysay haddana dib isu soo bilaabay waa dhamaysay Facebook leeno mid baa wax soo gelay 100 qof baa kugu jira 100 kii kasta wax soo gelay noloshiisii isagoo subaxii quraanay anu halkan ka quraanay anu halkan ka qadeynay anu halkan fadhiya anu maanta isla soo sawiraysan waxa khadar mar waa ka soo doona ninkiiba wuxuu ku jiraaba saas uu isla meeraysanaya ayadoo wax weeyaa bari bulshadi saqaf ma laha ilaada leysat laha saqaf sida uu waqtigu wax cunaysa adigu aan dareemin يعني علماء هذا السؤال عليه هذا ما هذا مركز قاركود فتنة مثلا شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ورجعات كسؤال عليها يعني وحيالها براها بالشيء وسائل التواصل الشيخ ما طبعا حتى كمرض لما تصل كمرض أيها حمرتها تذكروا اسكي راهدا وحوي لما تصل الشيخ محمد المختار الله يحفظه أنت جري درسي شو كتوشي يا فلان اتق الله لا تصور وما ذبكيس جزاه الله خيرا ونفع الله به وجزاه الله عنا خيرا الشيخ محمد المختار حفظه الله رجعات كسؤال عليه ويان أهل العلم يعني زودي قال لك جاري دنيا نسيت الشيخ وجساهدي يعني رنتي أسوة يعني دي اللغة ضيضاء أرديدي رنتي أي تأثير سيئين يعني ونكها كجاري دي أدون نعيم حتى واحد يسبوا طيستين وكتنازلوا أكتب الشيخ عضو كيا يحبن هيئة كبار العلماء علماء دواوين ويان ذلك المملكة وحويا وحوها وحنا أفرا وحنا الحل والعقد marka de macaali sheekh macaali waa mansib la gaaro weeyaan ma laqab la iska wada qorto meelahaas ku arkaysa macaali waa laqab la gaaro weeyaan oo wax ku fadhiya marka macaali wuxuu ka dhigay macaali sheekh birutbat wasiir mansibka wasiirka oo kale ayuu ka dhigay marka hada raatib fiican lacag fiican ma sha Allah khayr baa jira waxa laga yaabaa waxaan ka yaran $15,000 ihtimaal yani bishi waliba dhacdhaca kale iyo waxyaalaha kale ay u dheeriyeen sheekhu wala riyaalan waaxidan هل ريال شيخو كما قاطو هو حساب متيستي دولته بخينيسو waxa weeyaan cilmiga umada uu hayo fataawaha uu sheego fatwanay mali huwa xaraam in ay qaataan ahl cilmiga kale shay banaan weeyaan jaa'iz ilaahay bani subhanahu wa ta'ala laakin wara'u la hadd lahu qofkii uu ka xalaal mirto waxa isagu xaq u leeyahay xad malaha sheekh al-mukhtar xafidahu allah hal riyaal kama qaato hay'ad kibar ulama masbka umada uu hayo iyo fataawaha uu fatwanay wuxuu yiraahdaa ana la ataqada ala ad-din shay'an dinta ambaray waxa dadka aan u dhigayo وحويا ما تكري جرتين حتى الحديث وآخذ أجر الحديث يقدح جماعة وآخرون سمحوا وذوقتين مثلا كسابسا أخذوا الأجر على الحديث حديث النبي عليه الصلاة والسلام قف إنه مش قاعد بقاطه إن أهل العلم نوعا ما يعني قرآن كلفتيس قف إنه دقيتان كيسي أما دقيستيسي وذوقتين خلافات كجرا الشاهد الشيخ المختار حفظه الله وسائل تواصل أدو سبيل عليها حساب ملها وحيال سوق القرآن مجرته ميل وقلم مجرته هذا مع هذا إله سبحانه وتعالى علمه سوى بركيه مشارق الأرض ومغاربها طلاب العلم ويكحرين وكفايدستان تدرسي سفقية يكوي سوى عدي أهلا الشيخ مركا وحول المعلم با من أصحابته كم يقول الشيخ محمد والله وسائل تواصل خير بدن باكو جرا علمي بدن با شيخ لك دافع ما شاء الله أمدي وكفائدي نفع بدن باكو جرا والشيخ صوير قلب التويترك أيان كاغا سمانيا حساب الأون مركا قاركت مركا يرد شيء وحوي يقفكو النفس نفط وحلا إقبال إدبار مر وحويان سواء قابل سنتها وحويان خيرك يمرك قارك قفك ويرد له حديث قال النبي تمام عليه الصلاة والسلام لكل شرة فترة يعني دذلك كستوي حليه هي دذلك كستدال بلي مركب المركب قارك أتكو يروح وحويان يعني ماذا دالك النقطة شو يروح لك ويم حساب يربو يسميه وكاشخ أو كاكجل ويجتكي وهبين بيت شيخ وحروح يوم ساعة صوم بالهذا كنا محصوقر شيخ هبل بس نسوا هالكاس هبل باه تعليقي هبل كاس ير تعليقي وحلسان سيدا أودي أيام وحنا كوليه قاعد الساعة 3 ليلا صدق ده بينه وحول ضاع قيامي من الليل هبين كقيام الليل كيجي شو هو ورد يذكر شوف ما شاء الله وحول هبين كرت قيام الليل كي عليها والوكلة تبي صلاة وتر دي يوحوي بالهذين كجارسيون وحين غتبوا ليلة يتيمة وفرصة هذا الدرس هذا العبرة يعني ما هنا يقصبوا صامر تودوا نو لا درس قف من وحي كقاطويا شيخ وحن أركي وحن أنا عن يعني برنامج كي جدول كي علمي كي أنفس سعودي برنامج كم حينه كلا طوريو ده نوح وحن قو أنصدي وحن كدار تدب أو ضم بيسا إن بالك أن لا يقو قبل ليلة يتيمة وهبين ولما قبل أنه هي أبا مثل ما الله لا لها قبل ولا لها بعد هبين كدبين مجرى بين كورين مجرى
habeenkaas baalka ku baxsaday buu maqtac youtube ku jira ku daawan kartaan wasaa'il tawaasul ala kulli hal ahibati alkiram qiraa'ada qofka doonay inuu wax akhriyo waqti u waaymayo qofka doonay inuu wax akhriyo waqti u waaymayo innaanu saaxiibnahay oo reer Madiina ayaa wuxuu maqaalkiisi waan nahayay hadda la kamahayo waxa uu tilmaamay inuu akhriyay kutub aad iyo aad u fara badan waxa laga yaabaa konton mujallad inay gaarayso kutubta uu akhriyo waqtiga uu siinayna maalinkii inuu saacad ka yara aqal min saaca laakiin maxaa laga doonayaa الاستمرارية قضبك أفراد يعني كهذا حاجة قراءة وحكوسة سابسين الاستمرارية وحي إناد استمراري أدويش وحي إناد ويلا تمحي صبر إناد ويلا تمحي وحي صبر إيوه إناد وقت كيسته أدي وحي كتاب كوغوري مركز تساوي يرى آخر ده مركيبة أتكبه الدواء أدركتو وحي إناد فهمينين أما أنا إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع تذكري كري ويدو ككدو صفحة ما أنت أتفهم ويدو كتاب كده كوصة مردونتا كتبته تفسر بعضها بعضا صمور الإمام أحمد بن حنبل الحديث يفسر بعضه بعضا حديث كسياس يفسرها كذلك الكتب يفسر بعضها بعضا كتبت إذا السي وحوية بالبلارنيس مركز صفحة ما أنت أتفهم ويدي كتاب كده كوصة مردونتا مسألة ما أنت كتاب كان كجبح ويدي متكل أي كوصة مريسة يدو أسلوب كله قرآن إقاب كله قرآن سكله قرآن مركز اسكت دايما حي الاستمرارية إنه حي لا يشم حي مستمر وقت مستمر إنها تميسته تصالح واحد قبل أبي كرتا صدن دقيقة واحد قبل أبي كرتا 25 minute 20 دقيقة 40 ساعة مالك إنه يشو كل يوم إنه أخرده مركز تو أخردنا ومركز تو أكوف الفرم يحوي قراءة وحلقة مالك هو الرئة بلوضه هلك صفحات وحلقة من كوقات وصدح دقيقة 4 دقيقة 5 دقيقة حلقة من كوقات مركز ضمن واحد كرتا وحياة الله يقرأ القراءة السريعة وقت يركوبا إنه تكون المرت هذا واحد شيء الدورات لبحيه وكسابسا كيف تقرأ سريعا سيديبات قراءة هذا دقدق أدو أخري كرتا marka in wax weeyaan qofkii uu isbaro akhrinta qofkii uu akhriyayo wax weeyaan tusaale qofkii inuu isku dayo alqira'a sariica qofkii inuu barto sidaba qofkii uu baran karaa waxyaalo uu baran karo wax kamid ah istimraariya qofkii inuu wixii waqti badan qofkii ku bixiyo oo wixii mustamir adu noqoto kadalik aydan waxyaalaha ka qayb qaadanaya waxa kamid ah qiraa'ada wanaagsan degdega ah qofkii wax weeyaan inuu waxan uu akhriyayo inuu cod sare uu ku akhriyo waxan aad akhriyayso kitaabka hortaada yaala inaad cod sare aad ku akhrido hatta waxyaalahaas waxay ka saxayaan waxa kamid ah laxnigi iyo waxyaalo wax way adqal qaldiisi kadalik aydan waxay ka saxayaan kalimaadka in indhaha ay la qabsadaan qiraa'ada sariicada hadda lagu sheegay leeyahay qofkan aad buu wax u akhriyo ama qiraa'adiisu waa degdeg laano ishiisiba waxay baratay xurufti dabadna sidaa markuu u arko line-kii markaliya ishiisa ay ku wada dhacaysaa baynama qofka aan waxba u akhriyin waxa dhici karta isha sidaa line-ka markuu u dhufto inuu ku dhageeyo hal kelmad ishi waxay ku dhageysaa markii waxay sawiraysaa waxan waa sawir ishu waxay bixinaysaa shucaac ishu ay ku bixinayso kitaabka ama buuga saa markaad u furto wax laga yaabaa haddii qiraa'ada aanad u akhrin inaad la qabsato marka xarf wixii aad u akhrido kelmad inaad akhrido laakiin qofka aadka u bartay markiiba isha markuu saa ugu dhufto line-kiiba mar kaliya uu wada arkaya mar kaliya ayay wada sawiraysaa kamarada ishu mar kaliya sadarkii ama line-kii wada sawiraysaa alqiraa'a sariicada hadda waxaad ogtihiin waxay yidhahdaan qofku haddii wax weeyaan halka daqiiqo xagga kalimaadka laga xisaabiyaa bay yidhahdaan halka daqiiqo haddii qofku uu akhriyo 100 kelmadood iyo wax ka yar qofkaas waxa weeye qiraa'adiisu waa qiraa'a hooseysa la doonayo qofku inuu kobciyo ama uu kordhiyo 200 haddii halka daqiiqo qofku ku akhriyo 200 kelmadood hadduu qofku ku akhriyo waxay qiraa'adiisu waa wasat 400 iyo wixii ka sareeyana qiraa'adiisu waa caali waa qiraa'a sariica طيب saan ku xisaabinaya halka line waxa ku jira kalimaad kelmado مثلا قال زيد هو في المسجد قال وكلمه هو نوى كلمة زيد نوى كلمة في المسجد نوى كلمة هل كلاين تقريبا 17 كلمات بكجرا 12 كلمات إلى 17 كلمات هل كصدر بدو واحد كله فنيسا صفحته انت لاين اي تاي dadna waxa ku soo baxaysa inta kelmadood meesha wax weeyaan ku jira marka waxa dareemi kartaan 100 kelmadood oo sida qaalo oo kala ah oo yani ficil iyo yani kelmad ism ficil xarf kelmad waxay ka kooban tahay ism ficil xarf Soomaa yani wixii oo dhan in waxaas 100 haduu qofku akhriyo ama wax ka yar waxay ku leeyeen waa qiraa'ah قراءة دقدق معها طبعا تنكهر لها محي وقراءة كوسابسا القراءة البصرية وحكم قعبان وقت كانت ينوذ سامحين لكن تفاصيل بأمها القراءة الفتيد وحجرت قراءة بصرية وقفك إنها وكحك آخرية وأنا تسريعة أنت بدن قفك أنفعيس القراءة السريعة وتا إنها وكآخرية يسكد ينوح الآخرية سئنت كلمة قال زيد هو في المسجد هذا بقابك وآخره وحبدا آخرية كرميس لكن يسكد إن إيش هذا أبرته إن إيش هذا وحك آخره إيش أبو حكا آخر ضوء ضدنا إيشي وإيش هو محي ويلقب سنة يسمى مركز دم بدنا وحي نقول إنسان إن عرب كاجنا مركز دم بأوبرته
marka runtii walaalayaal qadiyada ku saabsan istimraarka iyo qadiyada ku saabsan in qofkii uu isku dayo akhrintiisa qofkii inuu waqti uu u jaraa wax badan ba runtii qofka ay anfacaysaa kadalika aydan qodobka shanaad in kaada doona ama hadda inuu xisiga sheegi doono wuxuu ku saabsan yahay at-tadarruj waxaad akhriyayso markiiba isku day saqafka ugu sareeya inaad ka bilowdo يعني مثلا هذه درس دروس كم إذا ليدين أمانة كتابك مجموع الفتاوى ابن تيمية ما شاء الله علمي بدن ما كل حجر البيت وانك مجلد هراء عقيدة أي كوضة صاب سنتهي تبدأ ترى خلاص يلا ما أنت محاضرة يحب صاب سنين اقرأ باسم ربك الذي خلق أنا أخريه مجموع الفتاوى بسم الله لا هذا ليس مناسبا التدرج معراج التخرج وحي عن التدرج كقفك وحي آية قفك وحويان ووضع وحي معراج يسلام أيوتهاي تخرجك يعني من تدرج تخرج قفك علمي أبرت آير دروستيسي وحوي تدرج آير وحي قيبي وحي حفظي وحي أخري تخرج مركز وحي قاري هير وحوي علمي ونبوغ يحلى إنه كور من قفك إنه قارو وحرف وكل نقطة تدرج كانت سنة إلهي سبحانه وتعالى سنة الله الكونية الدون كان قدام يحكو بسنين إلهي سبحانه وتعالى الرضي يعرك إلهي محكو أبر إمسا معلوم كن فيكون معه 6 أيام سماه لماذا؟ إلهي ما نكري كريم سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدس اسمه وعظمته إن إلهي يقول هذا كن فيكون نكري كريم إلهي سبحانه وتعالى بلا شك ولا ريب لكن العلماء ملكي شيئين حكمة وحي العذان ليعلم عباده التدرج التأني في الأمور لحما المط أي ما لنبى إلهي سبحانه وتعالى وحأبوري ما نعرك الأبوري ما المحوية يعني أفر ما سيد إلهي سبحانه وتعالى وشيء خلق الأرض في يومين اللهم المضي إلهي سبحانه وتعالى وكأبوري في 4 أيام سواء للسائل مركز من العرك الأولكي كل هذا ليعلم عباده التدرج قرآن كريم كم حكو سودك النبي عليه الصلاة والسلام قلبي هل مر صمه هل مر بين هيك سودك شيء النبي مسكح لي سميها وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة مع مركل يلبسوا دشواي النبي عليه الصلاة والسلام قرآن مركز إلهي سبحانه وتعالى وحوري كذلك لنثبت به فؤادك كذلك أي فعلنا كذلك سيدا وحن أصمني لنثبت به فؤادك سي قلبي جاء أن أغصبنا علمك وتثبيت الفؤاد وقفك قلبك يسيع وحويا وقهر وحوي علمي وقفك حصيل علمي وقفك وياشو مركا وتدرجك وحكوي مركا كاسما محي تدرجك علمك وقفك إنه قاطم محي آير الإمام الزهري وحيانا لقصوا نقليه وحكم ده علمك وحل وحصل يا محي بالأيام والليالي من طلب العلم جملة ذهب عنه جملة قفك هذا علمي هل مربا وضع برانيا كتبته هل مربا وضع حفظية ذهب عنه جملة وحنا كما هلا مركا لي علم وكوضتها لكن محبوبة هي آير قفك إنه حوية مركا قراءة إنه هذا شيء إنه وحبوبة عنها كتبت يعني التدرج في الكم أنت واحد قفك وآخريه اسكت دايما مركا إنك بقول صفحات أتقبل الوضوء حوية قراءة آخريه اسكت دايما إنك لو صفحات إنك تقبل الوضوء واحد آخريه صدق صفحات أفرتن كونتن أتصدق وحوي أوضة كذلك أيضا واحد آخريه سنة أكرر مركب النوع وصرية وكتبته حويا آدك وأضغطك اسكت كتاب سهلا ورسالة حويا علماء المعاصرين إليه تبدأ بالتدرج واحد مركب ما جاري سهر علماء يهرب كتبته ده وآخره إخوان الكرام قفك ودي كتبتي هرهد وآخرية علماء يهرب قابك وحقر يشرين أسلوب كمان مركب خارج علماء المعاصر حقر قفك ولبسان كرامة وهي قفك وحب فهمي وقفك قلبك يسوي حويا كبوحة أسلوبك أهل العلم ورحمة الله عليهم يقابك وحقر يشرين كلمات قابك يعبر يشرين علمي أساس كنا علمي قراءة كتبتي هرا قفك وآخريه كتبتي هرا يعني أهل العلم قالوا شيخنا عبد الكريم الخضير حفظه الله رجع وكتبته بدل ويان وقلنا اطلاع بدل يعني كتبتي ما شاء الله تبارك الله أنا تكشف مكتبتيس يعني مكتبات وقارئ أكل شقيق ور مكتبات دن مكتبات يقول الشيخ أبو تعالى ممكن دون شيء قسم العقيدة إنه كسر قاتوا وإنه قارئ السراوة قسم العقيدة تجيه قارئ ما شيخ بسم الله يعني الشيخ عبد الكريم الخضير يصالح على الشيخ ورجع وكتبته بدل لخريج كلهم حاجة كتبت ما شاء الله منافسة أنا كان حيسا منافسة علمية وحاجة كتبت إيوم قرني سعي حويا ويعني فليتنافس المتنافسون مكتبات ده أمر محلي وحل لغفري قصيم ما مكتبات إيبي وحويا لغفرة مركز حويا الشيخ شعب الكريم الخضير وحلي يدي مركز سيدا ومقال الظهر كيبا وصبح قالوا وصوصنا هذا مكتبات دي إيبي وكيف سيد شيخ صالح على الشيخ مركز زيرك وقفتها اسمه مخرب كيبو صوقر مركز سيدا وقسوا سيد وركسوا دارس شعب الكريم الخضير ما أنت شيخ واد فريسيس بسبب الشيخ يحوي شيدة يكراتين صار ما يستمع إلى دور كيف كشري ظهر إلى عشاء ظهر إلى مغرب مكتبات أضواء السلف لورنشري والرياض كنت هلا وهذا الحنين منك مكتبات ده هي مر لجور يستوي الشيخ وأد مر كان مكتبات ده وحاجة يبسدها وحبوا كيف يبسدها شيخ كتبتها صحيح مكتبات ده مر كان ولا ويدي حلو الشيخ الشيخ كتبته كيف يبسدها كورنا
wuxuu hal habeen baa shiiku 120,000 oo riyaal uu xisaabiyay 120,000 oo riyaal waa 20,000 oo dollar la gaaraysa waa hal habeen waa kutub hal habeen libisay sheekh 20,000 oo dollar طبعا يعني waxaan deenagu hawaysanayno ma aha وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء النبي محي كل عن صحابه ذهب اهل الدثور بالاجور يصومون كما نصوم ويعني ويتصدقون بفضول اموالهم marka ذهب اهل الدثور بالاجور dadka day wax weeyaan ilaahay subhanahu wa ta'ala isugu beegay laakiin inagu marka waxaan leenahay wax weeyaan sidii fuqaradii muhaajiriinta ayuu ilaahay subhanahu wa ta'ala fadligiisa weydiisanayna wax weey bikulli tasbiihatin sadaqa subhanallah alhamdulillah wala ilaha illa allah allahu akbar marka xibatul kiram horta intaynu haysano horta aynu ka mira keeno kutubta intaynu haysano aynu ka mira keeno horta inta Allah akhriyo inta si fiican looga faa'iideysto waxyaalaha ikhwaan kiram aadka inagu aynu u baahanahay maadaama kutub yaraan ayna haysato oo kutubtina aynu ugu yartahay ragina laga yaabo rag baaxisiina inay jiraan oo wax baarbaari kara ama diraasaad uliya iyo wax lamida laga yaabo inay wax sii wataan ama jaamacada ku jiro oo buxuus takharuj laga yaabo inay qoraan oo ay dhici karto inaanay helin maktabaadkii furnaa ee caadiga ahaa oo suuq maktabad soolaan ka furan oo qofkii ka heliyo kutubtiisa oo mutaalaca laga yaabo inaanu helin waxa laazim ah oo booska gali kara wala garanayaan filayn waxa soo wada ya waxa soo wada المكتبة الشاملة المكتبة عموما المكتبة الرقمية يعني كمبيوتر كا iyo maktabadkiis qaabka looga faa'iideysan karo inaynu barno oo la qabsado maktabada shaamil haday tahay maktabada alwaqfiya haday tahay maktabada musawwar haday tahay barnaamijka takhriijka xadiista ugu fiican haday barnaamijka khadim alxaramayn shariifeyn barnaamijka khadim alxaramayn shariifeyn الملك عبد الله barnaamijka ugu wanaagsan takhriijka xadiista barnaamijta qofka u barto youtube-ka ku jirta iyadoo la wada sharaxayo la wada duubay oo la isku dayo wax weeyaan sidii looga faa'iideysan lahaa loo qabsan lahaa runtii wax badan bay taasi ay naga saacideysaa oo kutub yaraanta in haysa meelo badan ayuu taa wax weeyaan ka kabi karnaa marka tadarrujka ahibatul kiram in aayar qofku cilmiga uu barto kutubta akhriyana qofku aayar uu akhriyo runtii qodob aad iyo aad muhiim ah qodobka lixaad intiqaa' al-maqru' waxa akhriyaysa wax walba akhri wax walba yani kull kitaab hadaad akhrido waxa laga marka qaar kood waxyaalo dib ku keenay inaad akhrido oo kutubtii wax weeyaan yani bidcada iyo dalaalada iyo baadida ay ku qorneed iyo kutubtii wax weeyaan mulxidiinta iyo gaalada wax weeyaan يعني imika waxyaalaha aad ka loo tarjuujiyo maxaa kamid ah muthaqaf noqo qof furan noqo muthaqaf wax walba akhriyo wixii gacantaada ku soo dhacba akhri muthaqaf ma tilana ya wax jira ma aha muthaqaf wax walba akhriyo yani nin caalim oo isagu kutubtii wax weeyaa gaalada u akhriyo inuu radiyo iyo aqoontiisu halka ay gaarsiyo meeshiis laakiin nin talib ilmi oo cilmigii hadda bilaabayo oo ku bilaabayo kutubtii wax weeyaan dalaalada iyo baadida ay ku sugnayd runtii wax laga yaabaa inuu lumo marka intiqaa' al-maqru' waxa qofku akhriyo waa inuu qofku انتقاء وكسبيستا او نقيستا سو نقيسنايانا وحو نقيسنايا waxay noqonaysaa mashaayikh inuu la tashto mid kadalik duruusta culimada waxyaalaha kutubta culimada ay sheegayaan dad maqsho kitaabka noocaas oo kitaab wanaagsan xalay waxaynu sheegnay fadl ilmi salaf ala ilmi al-khalaf ibn rajab kutubtiisa oo dhan ibn qayyim kutubtiisa ibn taymiyyah kutubtiisa ibn hajar sakhawi culimada lagu kalsoon yahay cilmiga iyo khayrka lagu yaqaano qofku inuu akhriyo oo wax weeyaan qofku inuu kutubtaas uu ka faa'iideysto haddii kutubta balaalada iyo baadida ay ku qoran tahay qofkii xataa gurigiisa keeno waa laga yaabaa qaarkood xataa inaad istiraado wax weeyaan inaad radiday iyo wixii lamida waa inaad baraarujisaa waxaan xasuustaa alwaalid allah yaxfaduhu kartoon baa jiri jiray kartoon kutubta wax weey ugu hoosay xagga hoose ku jiro waalidku ku qoray min kutubi dalaala oo kutubta baadida isugu dhawaan abeesa ku jirta meesha dad isku furto waxba ka soo baxaya marka hadda berigan Usmaan oo dimahad ka dhigan jirnay markiiba wallahi kutub dalaala war iska faraha qaad لانه واحد digniin baa ku qoran meesha ma baana wax taan wax kale lagu sheego marka waxa dhici karta kutubtaas ku inta guriga keento inaad ka dhimato dhici karta soo carruurtaad markay dhahaan wallahi aaba akhri jiray dadna wax weeyaan la moodo inay tahay kutub wanaagsan kutubta baadida noocaasa wax weeyaan qofku u baahan kara kutub al-itlaa' al-mahduud baa la yiraahdaa marka qofkii laakiin inuu marka horeba cilmigiisa ku bilaabo ma cilmiga waa inaad ku bilowdaa cilmiga saafiga ah cilmiga naafic ee dawladda aad ku baranaysaa wixii lamida kadib baa igaari doontaa waqti de kutubta kale aad taalacato aad akhrido oo waayo qofkii ninkii caalimku u baahanaya kutubta mukhalifiinta inuu akhriyo iyo waxyaalo wax weeyaan marka hadda laakiin runtii waxaan hadda aad u dareemayaa baraha bulshada ku jira waxyaalaha wax weeyaan ardaydu wax ku soo qorqorayaan iyo qofka oranaya waxbaan akhriyay akhrintii inay iska noqotay waxyaalo kutub falsafiya iyo kutub falaasifa ay qortay iyo kutubta gaalada iyo kutubta riwaayaadka la soo tarjumay iyo kutubta in marba qofkii isagoo xabad kafayna halkan u yaalo koob kafay shaah والله يا يعني شاها مركز صورته معاه كفايه مركز معاه ماشي كان horta يعني maxaa loo waayay nin wax weeyaan biyo intuu soo qaato ma uu sax soo dhacay kitaab sawirkoodii karkiisu ma sawirada inta badan wax la galaa kutubtaas inta badan aad u fiirsato ama kutub falsafiya ama kutub lan qofku wax ku leeyahay doonay noqdo muthaqaf qof wax weeyaan caalamkii la jaan qaadi karo caalamkii la haysto 2022 ya waqtiga halkaas ay maraysaa
marka أحبة الكرام وحين آخرين وين نقضي علمك نافعة العلم النافع وح إلهي كود وينه تبارك وتعالى كتبت النافعة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام وردي إن ضوية لطحوية صحيح البخاري وصحيح مسلم رياض الصالحين كي يعني سبحان الله إن هذا أصحابته كم ذا والرجع هذا إسكش قيستا وحوين كل سود مية لكن وندي وحن كتيرين شرين ده إسكا سوق يسوق كتيره هبين بانو كلنا ورا فريساني دنا وحي يقول شيخ وحصو صاري صحيح البخاري وحي ورد بانو لا إله إلا الله شيخ ورد وحرسوحي كسكي القرآن كمان كان أخريه وحكوا حاجة صدق كحديث البخاري كان كأخريه وبيجوا عن طيبه كارك سكستانو وضوء وحول مركي وقت كي قالوا أنت مالك يرى اللحية وحول الله صباح البخاري شيء بكون كتير هذا العلم النافع يا إخواني علم إلهي كله وني وكاس مركز صلى الله عليه وسلم قل 10 مرات إلهي وصلنا سبحانه وتعالى وصلى عليه واحد صلى الله عليه بها 10 marka intiqaa al-maqru waxa la akhriyay in noqon wixii gacantaada ku dhaco way noqotay wax nafci leh oo Ilaahay ku dhaweynaya subhanahu wa ta'ala waxa ku soo qatimaya at-tarkiis waxa la aad ka lagu baahan yahay qiraa'ada marka wax akhriyayso waxay u baahan tahay tarkiiska waxa ugu muhiimsan waxyaalaha inuu baahan waxa kamid ah inta wax akhriyayso yani ardayda qaar waxa dhici karta talib ilmi ma sha Allah خلاص maanta wax bilaabaya risaayishiina akhriyo tabna risaaladii uu bilaabo tabna markuu shan leen akhriyaba mobilkii risaalada ku soo dhacay WhatsApp uu yara furaysa soo yareegayo uu baxay waxay yiraahdaan culamadan ka hadla tarkiiskii maskaxda iyo qofku sidoo wax u weelan karo waxay yiraahdaan qofku wuxuu u baahan yahay 23 daqiiqo intuu soo noqonayo soo kitaab kitaabka akhriyaysa inta wax weeyaan maskaxdaadu ay la qabsanayso ee maskaxdaadu si fiican ay u fahmayso wax meesha ku dhex qoran 23 daqiiqo ayuu u baahan yahay 23 ka daqiiqo haddii qofku 5 daqiiqo markuu akhriyaba qofkii uu jarayo oo risaalad WhatsApp uu ku jarayo ama wax weeyaan uu eegayo mobilka ama mid uu la hadlayo wixii la mid ah tarkiiskiisu markasta uu go'aya waxa laga yaabaa 5 saacadood inaad meel fadhido waxaad akhridan inaan jirin way dhacaysaa Soomaa أحبة الكرام التركيز مركز وحقريس واسكت دايما مركز نسكف ويسو جوال كي نسكف ويسو يعني تواصلكم أما وحيالها براها بالشدو دباتوين كأيكوها هي نرارت أيكوها هي قراءة وحن إذن شيء محاضرة وقالي دكتور لي هذا عبد الله الوهيبي وكجرت يوتيوبكا وحلا إلى هذا القراءة في عالم التواصل الاجتماعي أما القراءة وأثرها في وسائل التواصل الاجتماعي يعني قراءة إيو وحويان أثرك إيراتك أي كل هذا هي وسائل التواصل أما دبعت وسائل التواصل أي كلهم أخرسك فهمت محاضرات مهمة وعميقة وحلقة حتى مركلي إنها تفهمين موضوع محاضرات إيو إنها تصير عنه وليسو مركا على كل حال أحبة الكرام موبل كي نسكفويه مركز وحقريسو مشكلات كي لا نسكفويسو وحيالكم مشغول نسكفويسو موبل كان هذا دون تلميذيرو توشلاه ودي وحي ضروري يوم وحي هذا هذا زمان قفكي وحوي والدكي عدي كرسو هذا يسي عدي وحي والله قيابه لكن وحن marba laga marka qaar kood waxa dhici karta mas'ala kugu soo dhacaysa markaas waxa soconaysa mas'aladii in hadhow meel yar aad ku qorato bal hadda mobilka saa u yara furo meel ku calaamadso calaamadintii maxaa ka raacay waa inta soo risaaladood ba soo dhacay wadiga ka jeestay waxa laga yaabaa 45 daqiiqo ka soo wareegto oo kadib aad xasuusato wuxuu inta sheegay ku dhacay Sheekh Maxamed Soomaa Mukhtaar habeen dhamasho gurtiga ka tagay marka أحبة الكرام runtii mawduuca qiraa'ada mawduuc aad iyo muhiim ah aanay tahay runtii in la iska kaashto aynu ka rajeyno insha Allah culimada dawladda iyo inay barnaamijta noocaas loo sameeyo tusaalaha naadi lil qiraa'ah oo dhalinyarada soo dawladda ku xiran inay kutub wax weeyaan akhriyaan oo ay soo akhriyaan iyagu soo talacdaan oo culimadu u tartiibiyaan oo jadwalka dawladda lagu soo daro dawladdaas iyo wax weey jaanib kale oo qiraa'ah laga yaabo insha Allah in sheekhoda ay hadal hayaan inay wax weey ardaydu wax akhriyaan oo kutub inta loo soo daro leeyahay kitaabka noocaas usbuuc lagu soo akhriyo kaana 2 usbuuc lagu soo akhriyo kaana 3 usbuuc lagu soo akhriyo wallahu a'lam sallallahu alayhi nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam